habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku baaqay in xukunka rayidka lagu soo celiyo Suudaan isagoo dhaleeceeyay xoogga loo adeegsanayo dibadbaxayaasha faahfaahinta booqashada Blinken iyo wixii uu ka yiri dalalka geeska ayaynu idin haynaa wararkeena kalena waxa kamid ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci cusub oo qaxootiga la xiriira kaasi oo ogolaanaya dadka magangeliyo doonka waxbarasho iyo fursada dadka ay ku soo dhaxgalaan waxa la sheegay in doorashada Soomaaliya ay dib ka u dhaceysay ay hor istaagtay tallaabooyinka lagu xalinayo xaaladaha bani'aadanimo ee dalka iyadoo cimiladu isbedelayso ayaa geela Soomaalidu dhaqato waxa uu la qabsanayaa deegaanka cusub waxaynu idin haynaa geel jooga duleedka Hargeysa kala soco BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabanaynaa dalka Suudaan halkaasi oo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu ku joogo booqashadii ugu horeysay Afrika waxa uu cambaareeyay xoogga loo adeegsanayo dibadbaxayaasha dimuqraadiyadda taageeraya waxa uu ku celiyay booqashadiisii waa hadalkiisii ahaa in ra'iisul wasaaraha xukunka rayidka lagu soo celiyay Cabdalla Xamduug shalay ayaa 15 qof toogasho lagu dilay iyadoo tobaneeyo kalena si xun loogu dhaawacay markii ciidamada ay rasaas ku fureen dad badan oo ka dibadbaxayay afgambigii wadankaasi ka dhacay wararkuna waxa ay sheegayaan in maanta Khartoum ay deganeed lana aasayay dadkii halkaasi ku dhintay aan idin xusuusiyo markana wixii bishii hore ka dhacay dalka Suudaan taariikhdu markay ahayd 25 Oktoobar General Abdul Fattah al-Burhani ayaa horkacayay militariga xukunka la wareegay isaga oo kala diray dawladii rayidka ahayd waxa uu xiray tobaneeyo siyaasiyiin ah ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug waxa la xiray xubno ka tirsan golahiisa wasiirada iyo hogaamiyaal kale oo rayid ah cadaadis ay reer galbeed ku saareen ayaana lagu sii daayay balse wali xabsi guri ayay ku jiraan kadib maalintaasi midowga Afrika iyana waxay joojiyeen xubinnimadii dalka Suudaan 27 Oktoobarna waxa ay midowga Yurub Mareykanka iyo dalal kale oo reer galbeed ah dalbadeen in xukunka rayid lagu soo celiyo ilaa iyo markaa waxa jiray dibadbaxyo dadku ay u soo baxayeen wadooyinka si ay uga cawdaan afgambiga jawaabtuna waxa ay noqotay in la jaro qadadka telefoonada iyo internetka waxaynu militarigu xireen wadooyinka iyo buundooyinka dalka waraysi ay BBC-du la yeelatay Mr Blinken ayuu ugu baaqay siyaasiyiinta xiran in la sii daayo waxa uuna u diray fariin hogaamiyaasha militariga ee dalka Suudaan waxaan qabaa in generaaladu aanay kaliya dhagaysan beesha caalamka laakiin marka hore ay dadka reer Suudaan maqlaan kuwaasi oo si cad u muujiya codkooda inay doonayaan in dib loo bilaabo dawlad shacabku hogaaminayo waxay ahayd talaabo taariikhi ah oo Suudaan ku riday waddo aad u wanaagsan oo dimuqraadi ah oo xor ah barwaaqana lagu gaaray taas ayaa hakad gashay oo howlihii socdayna salfatay waxa hakad geliyay ciidamadii militariga oo hogaankii wadanka iyo awoodii la wareegay dadka Suudaan iyo beesha caalamkuba waxa ay iminka ay ka duulayaan waa in dib loo soo celiyo kumeel gaarkii rayidkuna ay hogaamiyaan Mr Blinken wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyay dagaalka Ethiopia markanu aynu eegno wixii uu ka yiri dalkaas xaaladdu aad ayay u adag tahay sababtoo ah waa xaqiiq haddii arrintani ay sii socoto oo dhinac kasta uu aamino in tallaabo military ay xal u tahay dhibaatadooda waxaanu arki doonaa dagaalka oo sii bata iyo dhibta oo sii kororta ugu dambayna Ethiopia oo kala daadata marka waa arrin walaac nagu haysa innaga oo kaliya ma ahan ee dalal badan oo gobolka ah iyo caalamkaba si kastaba haatee Ethiopia waxa laga saaray heshiiska AGOA kaasi oo siinaya dalalka Afrika inay si xor ah u galaan suuqyada dalka Mareykanka sababta looga joojiyayna waxay la xiriirtaa xadgudubyada xuquuqda aadanaha joojinta waxa ay dhaqan galaysaa laga bilaabo bisha January ee sanadka dambe
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci cusub oo qaxootiga la xiriira kaasi oo ogolaanaya dadka magangalyo doonka ah waxbarasho iyo fursado ay dadka ku dhaxgalaan arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay 6 bilood ka hor waqtigii mas'uuliyiinta Kenya ay sheegeen inay xirayaan laba xiro oo qaxooti ah oo ku nool yihiin dad ka badan nus milyan qof waxay sheegeen dawladda in xeryaha loo isticmaalo goobo lagu kobciyo argagixisada lagu eedeeyay weeraradii ugu xumaa ee ka dhaca Kenya wariyaha BBC-da Ahmed Xaaji Xasan ayaa hadda toos ugu jira qadka Nairobi Ahmed soo dhawow arintan maxay kaga dhigan tahay qaxootiga Kenya ku nool waad mahadsantahay Cismaan arintan waxay ka dhigan tahay in hadda wixii ka dambeeyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya iyo maamulada deegaanada looga baahan yahay inay sameeyaan xarumo si ku meel gaar ah loogu haayo qaxootiga guryo la dejiyo marka ay imaadaan Kenya ay soo galaan iyo in si wanaagsan loola dhaqmo sidaas ayay ka dhigan tahay madaxweynaha Kenya ayaa mar hore sharcigan mar dib ugu celiyay baarlamaanka xilli uu dalbanayay in isbedel lagu sameeyo wuxuu xilligaas sheegay in sharciga uusan qeexaynin waxyaabaha muhiimka uu ku tilmaamay sida saldhig boolis xabsi ama xarun lagu haayo dadka qaxootiga ah laakiin talaabadan waxay imaanaysaa muddo yar un ka hor xilliga Kenya ay qorsheynayso inay xirto labada xero qaxootiga ugu waaweyn geeskan Afrika iyo Afrika xerada qaxootiga ee Dadaab iyo xerada qaxootiga ee Kakuma balse dadka qaxootiga ee ku nool xerada Dadaab ayaga hadaba sida ay u arkaan sharcigan cusub ee Uhuru Kenyatta xalay uu saxiixay ay Somali TV kala hadleen waxaan maartay soo dhaweynayaa go'aanka maanta ka soo baxay madaxweynaha Uhuru Kenyatta aad iyo aad buu noo farxad galiyay wuuna mahadsan yahay maadaama dhalinyaradu uu ogolaaday waxbarasho wadanka gudihiisa inay ka baran karto go'aankiisa maartay ku aadan dhalinyarada u fududeeyo waxbarashada inay meesha walba ka baran karto waayo taas sababta anaga maartay dhibaato weyn aan haysato daanahay dhalinyaro in loo fasaxay dhalinyarada ku nool xerooyinka Dadaab waa arrin muhiim ah arrin fiican waay arinta waa soo dhaweynayna dawladda Kenya ku mahadsan tahay maadaama 30 sano meeshan ay ku nahay qaxooti haddii noo fasaxday in aan dhalinyaradeen waxaan ka baran karno wadanka gudihiisa kala waa arrin kala oo farxad leh marka xeradan qaxootiga Cusmaan oo Dadaab waxa ku nool boqolaal kun oo Soomaali ah oo u badan Kakumana waxa ku jira dad badan oo Soomaali ay kamid yihiin balse u badan yihiin dad ka soo qaxay Suudaan iyo South Sudan iyo Ethiopia iyo Uganda iyo dalal kale oo Afrika ka tirsan marka talaabadan waxay uga dhigan tahay in hadda kadib loo ogol yahay inay dadka soo dhaxgalaan ay shaqaysan karaan markii hore qaxootiga way ku adkeed inay shaqooyinka caadiga ah dalbadaan meelo kala duwan ka shaqeeyaan balse hadda waxa u fududaanaysa inay shaqeeyaan inkastoo waxbarashada markii horeba loo ogolaa magaalooyinkan inay u soo safri karaan ayuu sharcigan u ogolaanaya balse dadka arrimahan falanqeey waxay tilmaamayaan in sharcigan uu keeni karo in qaxooti badan uu Kenya ku soo jabo sida colaada Ethiopia ka taagan hadda oo keeni karto in qaxooti badan ay dhinacan Kenya u soo wareegaan taasna ay sidoo kalena waxay u arkaan inay tahay fursad wanaagsan iyo in Kenya caqabad ku noqon karto oo labada dhinacba ay ka saameyn karto qaxooti cusub hadii uu xilligan Kenya ku soo aado laakiin xerada Dadaab sababta Kenya ay u xirayso waxay ku sheegtay inay tahay inay xuduud u tahay ama xarun u tahay waxay ku tilmaamtay ururada argagixisada lagana soo qorsheeyay weerarada lagu qaado Kenya balse hay'adaha qaxootiga sida hay'adda UNHCR iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhowr jeer Kenya kula dhigay in xeradan qaxootiga si gaar ah waliba Dadaab la xiro albaabada loo laabo Cusmaan waa mahadsantahay Ahmed bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa ciidamada ammaanka dalka Uganda ayaa toogasho ku dilay wadaad muslim ah oo ay ku eedeeyeen in uu qori jiray koox hubaysan oo lala xiriirinayo qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee talaadadii ka dhacay caasimadda Kampala wadaadka oo lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamuud Cabbaas Kirivu ayaa lagu dilay meel ka baxsan Kampala waxaana socda baadi goob kale oo lagu wada wadaad kale Turkiga ayaa sii daayay laba qof oo Israa'iil u dhashay kuwaasi oo ku dhawaad 2 toddobaad u xirna eedo basaasnimo labada qof oo lamaana ah oo isqaba ayaa fasax nasasho waxay ku joogeen Istanbul markii la xiray kadib markii ay sawiro ay ka qaadeen guriga uu degan yahay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan mas'uuliyiinta Israa'iilna waxay sheegeen in marnaba labadaasi shakhsi ee dalka Turkiga ku eedeeyeen inay basaasnimo Israa'iil ugu shaqeynayeen inaysan marnaba la shaqeyn sirdoonka dalka Israa'iil
ciidamada xadka waddanka Poland waxa ay sheegeen in muhaajiriin gaaraya 1,000 ay weli joogaan xadka ay la leeyihiin Belarus iyadoo midowga Yurubna ay dardar gelinayaan dadaaladooda dhibaatada wax looga qabanayo xiisadda ayaa korortay Arbacadii kadib markii ciidamo waddanka Poland ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo dhuumo biyo xoogan tuuraya si ay u joojiyaan muhaajiriinta isku dayaya in ay dalkooda soo galaan Yurub u sii gudbaan Belarus waxa ay sheegeen in ay wada hadallo la yeelanayaan midowga Yurub oo ku saabsan dhibaatada ku salaysan ee la xiriirta muhaajiriinta xooga ku soo galaya halkaasi ee ku sii socda inay Yurub aadaan shirkadda samaysa tiknoolajiyada ee la yiraahdo Apple ayaa sheegtay in ay bilaabayso inay u ogolaato macaamiisheeda inay dayactiran karaan aaladahooda iyadoo loo fasaxayo helista qalabka saxda ah ee shirkaddu leedahay wajiga ugu horeeya in dadka alaabtooda ay dayactiran karaan waxa uu ka hirgelayaa waddanka Mareykanka macaamiisha degan ayaana samaysan kara taasi tani waxa ay soo baxday kadib markii bilo uu cadaadis weyn haystay shirkadda Apple oo la xiriira xaqa dadka ay u leeyihiin in ay wax dayactiran karaan taas oo ay doonayaan inay si madax bannaan dukaamada inay u tagaan qalabkoodana iyaga ay u hagaajistaan mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxa inoo soo socdo oo caawa qaybta dambe idinkugu haynaa isbeddelka cimilada iyadoo ay jirto ayaa geela Soomaalidu dhaqato waxa uu la qabsanayaa deegaanka cusub waxaynu idin haynaa warbixin aan idinkaga sameynay duleedka Hargeysa geel ku nool halkaasi oo geelaasi uu daaqo
caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa booqanaya in uu xukunka lagu soo celiyo rayidka dalka Suudaan ayuuna dalbaday wuxuuna dhaleeceeyay xoog loo adeegsanayo dibadbaxayaasha. waxaa la sheegay in doorashada Soomaaliya ee dibka u dhacaysa ay hor istaagtay tallaabooyinka lagu xalinayo xaaladaha bani'aadanimo ee dalka. wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa u sheegay golaha ammaanka in dib u dhaca hanaanka doorashada ee Soomaaliya uu joojiyay horumarka wixii dalka uu kow u ahaa. James Iswan waxa uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in dib loo qaabeeyo dastuurka iyo qaybta cadaaladda iyo in hore loo sii wado ajandaha horumarka iyo nidaamka dhaqaalaha. doorashada waxa ay dib dhaceedu ay keenay ayuu yiri muran siyaasadeed oo dawladda qaybta ugu sarreysa ka dhex jira. James Iswan ayaa ka digay habka aan fiicnayn ee gaabiska ah ee ishortaagaya in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato waxyaabaha ugu muhiimsan ee ammaanka iyo horumarka ay ku jiraan. xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya weli waa ay xun tahay waxaana isugu darsamay dagaal barakac iyo cudurro. Soomaaliya waxa ay safka hore uga jirtaa wadamada cimiladu ay saamaysay oo ay uga sii dartay xaalad degdeg oo bini'aadanimo. hay-aduhu waxay ku qiyaasayaan 7 milyan iyo 700 kun oo Soomaali ah in ay u baahan doonaan gargaar sanadka soo socda. 1 milyan iyo 200 kun oo caruur ka yar 5 sanana ay noqon doonaan nafaqa darro 2022. safiirka Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa sheegay in dib u dhaca uu muhiim u ahaa xaqiijinta doorashooyin xor ah oo la aamini karo. marka dhinacyo badan laga eego dib u dhaca ku yimid doorashada waxa ay ka dhalatay baahida loo qabay in dhammaan dhinacyada ay khusayso aan lala socodsiin habka ay wax u socdaan balse waxaa loo aqbalay si loo xaqiijiyo sharcinimada hanaanka doorashada. maanta waxaa la xusayaa maalinta statisticska Afrika dhanka Soomaaliya 2020kii ayay ahayd markii la dhisay hay'ad madax bannaan oo statistics ah iyadoo markii horena ahaan jirtay mid ka mid ah waxyaha wasaaradda qorsheynta. hay'adda oo maanta ku xustay Muqdisho maalinta statisticska Afrika waxay sheegtay in ay sameynayso sahan kala duwan sidoo kalena ay qorsheynayso in ay sameyso tirokoob guud oo dabayaaqada sanadka 2023 ah. haddaba waxaa si toos ah qadka magaalada Muqdisho ugu jira Sharmaarka Faarax oo ah agaasimaha guud ee hay'adda statisticska Soomaaliya. Sharmaarka soo dhawow waxaad nooga warantaa qaabka aad u sameynaysaan tirikoobkan. Cismaan marka hore waa kaa mahadcelinayaa waa sidaad u sheegtay hay'adda statistiska qaran bay dalka waxa weeye mar walba ay lahayd laakiin markan 2020 laga bilaabo waxa weeye waa la madax baneeyay. maantana sidaad u sheegtay waxa weeye waxay ahayd maalin aan u dabaaldegayno maalinta statistiskada Afrika. mawduucana wuxuu ahaa casriyeynta. marka waxaan ku soo bandhignay madax badan baa ka soo qayb gashay marka hore oo uu wasiirka qorsheynta ugu horeeyo gudoomiyaha bangiga ambassadorka UK ee Soomaaliya u fadhiya dad badan ka soo qayb galay. marka waxaan ku soo bandhignay waxa ka mid ahaa sahamo badan oo aan soo wadno. marka mid ka mid ah ayaa waxay ahayd tirakoobka marka taariikh buu leeyahay isku dayo badan baa Soomaaliya la sameeyay laakiin mid kaliya ayaa si buuxda u guuleystay oo kii 1975 ayuu ahaa. kadib 1986 baa la sameeyay laakiin lama faafin. mar haddaan la faafin lama isticmaali karo. marka Soomaaliya ilaa ay hadda waxa lagu shaqeeyo waa kuwii 1975 ahaa. waxaa jiray oo kale intii burburka aan ka soo kabsanaynay ama post conflict intaan ku jirnay isku dayo badan oo qiyaas waa tahay marka population estimate survey ayaa la yiraahdaa. waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo marka annaga isku daygaas qiyaasta inaan ka gudubnaan doonaynaa oo tirakoob lagu kalsoonaan karo oo la xaqiijin karo. waa tahay Sharmaarka
waata waxaad noo sheegtay in isku daygaas aad ka gudbaysaan oo aad heerka kale u gudbaysaan marka farsamada iyo dhaqaalaha ay hawshan u baahan tahay iyo awoodda dowladda Soomaaliyeed marka xisaabta lagu daro sidaad u hirgelinaysaan arrintan horta hore waxaa muhiim ah horta hore hay'adan waa hay'ad madax bannaan oo waxay la timi waxyaabo hore oo markii ay wasaaradda ay ka tirsanayd ka duwan oo macnaha ha ahaato dhinac xirfad ha ahaato dhinac maaragtay firfircooni ha ahaato cilaaqaad badan oo ay la samaysay hay'adaha deeq-bixiyayaasha iyo wadamada nala shaqeeya marka taasaa marka waxay u sahlaysaa waxyaalo badan oo kale sidoo kale dowladda naftirkeeda sharciga siduu u dhigayo awoodo badan oo intii hore ka ballaaran ayaanu leenahay marka caqabado way jirayaan oo dhinaca dhaqaalaha ah dhinaca maaragtay sidaan dalka ku wada gaari lahayn laakiin qorshaheenna iyo sidaan ku talagalayno maadaama xaq qof walba uu leeyahay ay tahay in qof walba gurigiisa lagu tiriyo ma aha kaliya in la tiriyo waxaa ku jira kan population and housing survey baa la yiraahdaa marka gurigiisa qofka lagu tirinaya marka sharmaarka sanadaad qabsateen aan ka dhaxgale qorshaha bal dadka caadiga ah ee maantana daawanaya bal u sharax qorshahaas aad qabsateen sanadka waxa uu yahay isagoo faahfaahsan iyo sidaad wax u qabanaysaan horta hore waxaan haysanaa hadda maanta laga bilaabo ilaa iyo goorta inoo qorshaysan waxa weeye waxaanu haysanaa 2 sano waa November 2023 ayaa inoo qorshaysan inaan qabanno inta ka horeysa waxaa jira howlo badan iyo halbeegyo badan oo la doonayo in la gaaro si taas looga xaqiijiyo biidnillaahi kariimna waxaan ku kala soonahay inaan howlahaas ka soo bixi doono marka howlahaas oo ayaa asbaab u noqon doona maaragtay inaan waqtigaas aan hirgelino aad baad u mahadsan tahay Sharmaarke waan kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaan iyadoo isbeddelka cimiladu uu deegaanka geeska Afrika dhibaato ku noqday ayaa waxaa jira dhibaatooyin badan uu u leeyahay deegaanka isbeddelka cimilada gaar ahaan geela oo ah lafdhabar dhaqaalaha Soomaaliya haddaba warbixin aan kaga hadlayno geel ku nool duleedka magaalada Hargeysa waxa inoo haya Cabdiraxmaan Bidhaan iyadoo caalamka oo dhan uu ka hadlayo isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay xoolaha ayaa geela oo ugu adag xoolaha ay Soomaalidu dhaqataan uu isbeddelkaasi laftigiisu la qabsanayaa geelii hawdka daaqi jiray ee miran jiray ayaa imika kambalka jooga magaalooyinka halkani waa magaalada Hargeysa duleedkeeda caasimadda Soomaaliland oo geel badan imika lagu dhaqdo weli geela dadka dhaqda ee la jira way og yihiin in geel uu qiimo weyn ugu fadhiyo gaar ahaan caanihiisa iyo calafkiisa kale oo ay tahay hilibka iyo waliba iyadoo geelu yahay mid la rarto oo xagga gaadiidkana faa'iido weyn ku leh wala maala wana cabna wala dira marka dawaan dhaqana garanaysa marka waa dow qolgeedba aan ugu dawiyahay geela ayaa haddaba waxay keentay in imika uu noqdo mid isagu soo guryo noqday oo magaalooyinka aad arkayso isagoo ku dhex nool oo uu geelu dawaafayo magaalooyinka waaweyn geela noloshiisu waa isbeddeshay taasina waxay keentay in mararka qaadna geelu aad u tarmo mararka qaadna ay noqoto in geela abaartu ay liiciso waqtina waa barwaaqo xoolo way bataan oo iska daba dhalanayaan waa soo korayaan oo soo badanayaan waqtina de abaaru markuu dhacaan iyadu waxba bay ka dhimasay waxba faa'iidaan abaari ma hayso way ku soo kordhinaysan male marka xilliga abaarta de wax xooli waa dhimashay keenayaan dib badan bay keenayaan hawlo noocaas oo bay keenayaan waqtiga barwaaqadana way dhalanayaan way iska daba dhalanayaan way badanayaan way naaxayaan miitinka hilibkooda aad wanaagsanayaan Soomaaliland ayaa dhaqaalaheedu ku xidhan yahay xoolaha la dhoofiyo iyo xoolaha la dhaqdaba sida ay sheegayaan qiyaasaha hay'adda cuntada iyo beeraha ee adduunka ee FAO 80% lacagta adag ee Soomaaliya hesho waxa ay ka soo gashaa xoolaha dibadda loo dhoofiyo sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa haddaba waxay tahay suuq weyn oo iyadu markaasi xoolaha lagu kala iibsado geelu kaalinta koowaad buu ku jiraa number 1 ku jiraa geelu waa boqorka xoolaha weeyii marka Soomaalida la yiraahdo
waana dee waxyaabaha ay u isticmaalka badan yihiin gudaha lagu cunaa inta badan waana la dhoofiyaa laakiin imika kan inagu xeeran ee tubani waa loo kalo dalka gudihiisa waa kii lagu cunayey kii dhoofka halkan imika ma joogo sida doontaba haatee geel wuxuu duruufo badan kaga soo gudbay sida ilaahay u abuuray iyo adkaysigiisa taasi oo keentay geelu inuu noqdo mid cimilooyinka ugu adag dhex mushaaxa oo aan isaga dhibaato ku noqonin markana wararka ciyaaraha ee caawa New Zealand ayaa ka baxday koobka adduunka 2022 ee ciyaartoyda ka yar 19 sano naadiga ayaa sababta ku sheegay xayiraadaha karantiilka marka dalkooda ay ku soo laabtaan Scotland ayaa hadda si wadanaysa ciyaartoyda iyadoo ay maqan yihiin New Zealand koobka adduunka 19 kuwa ka yar waxa uu ka dhacaya Caribbean-ka inta u dhaxaysa 14 January ilaa 5 February Afghanistan waa ay ka qayb galayaan tartankaas kubadda cagta inuu ku jirnaa xiriirka ciyaaraha Koonfur America waxa ay shaqada ka joojiyeen garsooraha iyo kaaliyaha garsooraha ee dhinaca videoga kuwaasi oo talaadadii lagu eedeeyay qaladaad aad u daran ciyaartii koobka adduunka ee loogu soo baxayay Argentina iyo Brazil waxa ay ku guuldareyseen inay ciqaabaan difaaca Argentina Nicolas Otamendi kaasi oo la arkayay isagoo xusul ku dhufanaya ciyaartoy kale xiriirka kubadda cagta Koonfur America waxa ay sheegeen falka uu geystay inuu ahaa mid dagaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin intaan habeen dambe kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo